soo dhaweynayna xogayaha cusub kalkacyo sorry oo maanta intaan iyo in ka badan bay garoonka maanta ku soo xadireen xogay ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow magaaladii aad madaxda u ahayd insha Allah ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaad magaalada kalkacyo xubinta lagu doortay ama lagu magacaabay oo ah xogayaha degmada dawladda hoose kalkacyo inaad ka soo dhalaal doonto ilaahay idinkiis maanta intaan in ka badan ba way mudnaan ku soo dhaweey laakiin intaan ayaa isku soo xilqaantay in garoonka ugu yimaadaan waxay daarantaa soo dhaweyn wixii kulan ah iyo iswareysi ah wax noo noqon doontaa insha Allah xaafisada kugu imaan doono markii wadi mar la soo dhawo ku soo dhaweynayna degmada Tangaalkacyo xogayo soo dhawo xogayahan loo magacaabay dawladda hoose macnaha ku shaqeyn doona magaceeda aad iyo aad baan gacmo furan kugu soo dhaweynayna waa wadankaaga hooyo waa dalkaagi waa dadkaagi waa dadka aad u shaqeyn doonto u dhabar adeegi doonto hadii Ilaahay qadaro waa wadankaaga hooyo ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow wadankaaga hooyo assalaamu calaykum kalkacyo aad iyo aad ayaan ka magacilinayaa maamulka xaafadaha dhalinyarada ururada haweenka ayasmiyaasha qiimaha leh meesha maanta jooga dhammaan cid walba oo laama amniga baasta xaafada dhammaantiin maalin wanaagsan maanta meesha waxu taaganahay soo dhaweynta xogayaha degmada kalkacyo mudan xogaya Cabdiqani soo dhawow ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow bulshadaadii ku soo dhawow dad mataqaanahay aad ku jecel oo tariya maanta ku taagnaa qoraxda soo dhaweyntaada ayoo tahay maalin jimco ah marka mudan xogaya soo dhawow wixii abaar ah waxa ka dhiganaa xafiiska iyo mataqaanahay degmada marka muhiimadu waxa weey soo dhaweynta marka mudan xogaya soo dhawow ku soo degmadaada mudan xogaya soo dhawow maanta oo jimco oo maalin cibaado ah bulshada magaalada Gaalkacyo anoo ku hadlaya shanta xaafadood afkooda ku soo dhawow ayoo qoraxda ku taagan maalin jimco mudan xogaya ku soo dhawow bulsho aad ku taageersan ku sugaysay in badan lagu haminayay nin dhalinyaro aqoon-yahana oo bulshadan wax magaaladan Gaalkacyo bilicdeeda horumaritaankeeda wax ka bedela inaan noqon doonto ku soo dhawow mudan xogaya ku soo dhawow maantay oo sanadka 2022 uu yahay dabayaaqo waxaan ku soo gabagabeynayaa kuleyta waa noo dambayn doontaa is araga dambe ku soo dhawow gacmo furan walaalnimo degmadaadi ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa ta'aala ayaa mahad iska leh waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka koobaad Allah subhanahu wa ta'aala waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan bulshada meeshaan maanta igu soo dhaweysay heer gobol iyo heer degmo iyo heer caalami intaba ah waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin magacyadiina ma soo koobi karo dad aad u sharaf badan ayaa tihiin xildhibaanada golaha deegaanka agaasimayaasha gudoomiyaha xaafadaha ururada haweenka bahda saxaafadda culumaa diinka dhammaantiin waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
salaan kadib warkayga iyo qodbadayda meeshaan kuma dhammaysan karo waxaan ku soo koobayaa soo dhaweynta ay soo dhaweysteen hambalyadeedii waan idinkaga mahad celinayaa sida mugta iyo miisaanka leh oo aad ii soo dhaweyseen oo waxa weeye aad ii muujiseen hiilka iyo rabitaanka la iga doonaya gobolka marka waxaan rajaynayaa aniguna mid ka soo dhalaalay inaan noqdo waana mahadsantiin